Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Marka hore waxaan is xasuusin doonaa inay tahay maalinimo Jimco ah oo aan nooga baahan in qaraabada xiriirno sidaas oo kale adkaartan aan ku dadaalno oo aan suuratul kahfina akhrino. Waa maalinimo Jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 8 bisha May 2026 aynu ku bilownay Mareykanka ayaa xalay weerar ku qaaday goobo ku yaala dekedaha Qasam iyo magaalada Bandar Abbas ee gudaha Iran sida ay warisay warbaahinta aqalka cad ku dhow ee Fox News. Sarkaal Mareykan ayaa sidoo kale u sheegay Fox News in weerarkan aan loo qaadan karin dagaalka inuu dib u qarxay oo ay ahaayeen oo kaliya howlgal kooban. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u muuqda mid iska ciyaaraya ayaa ABC News u sheegay duqeymihii lagu qaaday Iran waxa ay ahaayeen kaliya taabasho jacayl ayuu leeyahay, waxaana uu sidoo kale yiri si tartiib ah ayaan u taabanay, xabad joojintu welina way socotaa. Dhinaca kale, ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa war-saxaafadeed waxyar ka hor ka soo baxay waxaa lagu xaqiijiyay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kadib markii Mareykanka uu dhowr weerar xalay ka fuliyay gudaha Iran. War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri kadib markii la jebiyay xabad joojinta isla markaana ciidanka Mareykanka ay weerareen markab shidaal oo ay leedahay dowladda Iran meel u dhow dekedda Jeska iyadoo la burburiyaasha dagaalka ee Mareykanka ay ku soo dhawaadeen marinbiyoodka Hormuz. Waxaa la fuliyay howlgal wadajir ah oo aad u ballaaran oo si heer sare ah loo qorsheeyay kaas oo loo adeegsaday noocyo kala duwan oo gantaalo balaastig ah iyo gantaalada lidka maraakiibta iyo diyaaradaha ismiidaamiya. Waxaana sidoo kale ay sheegeen waxaa la beegsaday burburiyaasha cadowga iyadoo lagu dhuftay madaxyo qarxa oo awood weyn leh. Xogaha sirdoon iyo kormeerayaasha gantaalada ayaa muujinaya in ciidanka Mareykanka ay gaareen khasaare culus halka 3 markab oo cadow ay si degdeg ah uga baxsadeen deegaanka ama marinbiyoodka Hormuz sida ay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran.